dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلم أحمد عبد الرحمن محمود oo idin dhigi doona maadadii Soomaaliga ee fasalka shanaad mawduuceenu maanta dhiganayna waxa weeyaan maahmaayadii aynu hore soo dhiganay ayaa sii socda marka maahmaayadii hore aynu soo dhiganay waxay ahaayeen maahmaayadii waraabaha maahmaayadani waxay ku saabsan yihiin waa maahmaayadii dameeraha maanta maalintii hore waxaan soo dhignay qaar ka mid ah xayawaanka duurjoogta ah maahmaahidooda oo waraabuhu ka mid ahaa maanta waxaan dhigi doonaa qaar ka mid ah xayawaanada dabjoogta ah ee dadka la nool maahmaahidooda inaynu aragno waxaan filayaa inaad bugaagtiinii arday kastaba uu haysta hadda oo aad ila socotaan halka aan bilaabayo ee aan sheegay waa boga 114 ama 114 ama 114 waa maahmaahiyada dameeraha maahmaahiyo ujeedada aynu maahmaahiyadan ka leenahay waa saddex qodob oo bartan ku yaala aad inadii fahantaan baa fiican waxaynu ka baraynaa 10 walba waxaynu sheegnaa danta inoogu jirta ee inoo geysay inaynu qoranno eegno akhrisano dhigano waa kow inay dameeruhu ka mid yihiin noolayaasha dabjoogta ah ee dadka la nool bini'aadamka la nool waxa loo adeegsadaa maahmaahiyadan waxa loo adeegsadaa la dameeraha in loo adeegsado ayaynu ka baraynaa maahmaahiyadan gaadiid ahaan sida rarka dhaanka biyaha iyo geedigaba loo adeegsado dameeraha inkastoo ay waxtar badan leeyihiin dameeruhu haddana qaar ka mid ah maahmaahiyadoodu waxay inoo muujinayaan doqonnimo laakiin markasta dheeftooda lagu qabo dameeraha ayaa badan waay maahmaahiyada dameeraha waxaa ka mid ah kow dameeri dhaan raacday maahmaahda tidhaahdaa dameeri dhaan raacday maahmaahdani waxay inoo tilmaamaysaa in dameeraha iyo dadka maangaabka ahi ama ay caqliga gaaban lihi ay hadba cid ay arkaan iska dabagalaan ee aanay dantooda ku xidhnayn weliba dameeruhuna ay iska dabagalaan dameero kale oo geediya hadday doonaan iska raacaan ay ku dabalumaan dabe sidaa lagu waayo oo laga quusto qofka maangaabka ahina dad aanay isku dan ahayn uu ku dabalumo ku dayashadooda dameeri isku halayn ayay hooyadood dabada uga nuugtaa waa maamada labaad dameeri isku halayn ayay hooyadood dabada uga nuugtaa maahmaahdani waxay inoo tilmaamaysaa in dadka had iyo jeer falalka xun sameeya ee waxba laga qaban waayaa ay isku halaynayaan cid kale oo difaaci doonta dameeruhuna had iyo jeer inkastoo haraati badan yihiin haddana tay dhaleen xagga dambe ka jaqdaa waxay u haraati weyday hooyadeed ayay ogtahay inaanay haraatiyin qofka doqonnimo badan sameeya ama edeb darro dadka ku edeb darrooda ee had iyo jeer waalidkiisu qaban waayo ama wuxuu sheegi waayo ama oran waayo heblow kaale waad khaldan tahay ama isagu oran waayo aabbo waan khaldamay ama hooyo waa khaldamay ee ii dhaaf isagoo aan la xasuusan falka uu sameeyey wuxuu maahmaadan buu yeelanayaa dameeri isku halayn ayay hooyada dabada uga nuugtaa macnaheedu waxa weeye qofka falka xun sameynaya wuxuu og yahay cid difaacda oo ka dambaysa ilaa wuu iska dayn lahaayay maahmaahda saddexaad macnaheedu waxa weeye quuf dameeraad qoonsi ma leh quuf dameeraad qoonsi ma leh dameeruhu waxay yidhaahdaan quruf had iyo jeer sidii wax sandaarsanaya oo kale ayay quruf yidhaahdaan intay hawo ka keenaan sanka ay quruf yidhaahdaan waxay maahmaahdani tilmaamaysaa mayeeraanka xoolaha ah iyo dadka maangaabka ah ee caqligaabka ah dadku isku caqli maaha midba caqli wanaagsan oo dabiicad wanaagsan
oo dhaqan wanaagsan oo cibaado wanaagsan oo hadal wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan mid baa akhlaaq daran oo dadka caaya oo wadada ku ciyaara hadduu kubad qaato la tagi maayo garoonka ee wuxuu la tagayaa xaafadda yar ee masaakiinta ay la jaarka yihiin wadada yar ee ka galaan gurigooda ayuu la hor fadhiisanaya kubadii taasoo maanta oo bartaa ku laadaya ma xasuusan karo isagu iyadoo aan lala hadlin ka hor in halkan ay tahay marankii bani aadamku marayay oo caruur yar oo badan ay ka naxayaan kubadda halka lagu laaday duuga noqonayaanba qaarna ay kuba dhacaysaba ma garan karo ilaa iyo qof intuu u tago weyn u hanjabo inta ka horeysa aqligiisu ma keenayo waa wada meesha aad tagtay isxasuuso oo ka baydh marka maamaadani waxay noo tilmaamaysaa dadka maangaabka ah iyo dameeruhuba in falalka ay sameeyaan aan laga soo qaadin wax weyn ee la iskaga dul qaato oo ay tahay waxay dhaqan u leeyihiin iyo dabeecad ee aan xumaan kale kugu sameeynin adiga dameeri in qoof dameerad qoonsi ma leh macnaheedu waxa weeyaan dadka maangaabka ah iyo dameeruhuba iyo xayawaanka dameeruhuba ama dadka iyo mayeeraankuba dabeecadaha ay sameeyaan ee aad ku aragto in la iskaga dul qaato oo aan nafta waxba lagu sii dhibin ama aan aad loogu sii fikirin oo aan loo oranin waad xumeeyay waxa soo yiri hebel haduu maangaab yahay oo ogtay ama heblaayo de iska dhaaf waxba ha qabsanini waad ogtayba inay iskaga dhacdo maalin kasta oo hadal aan haboonayn iskaga tiraahdo ardayda waa iska dhaafaysaa waxba ha isku lurin waxba ha isku weyneyn waxa la yiri qoof dameerad qoonsi male maamada waxaanu ka baranaynaa arday maanta in dadka maangaabka iyo mayeeraanka dabeecadaha ay bixiyaan aan waxba la isku sii dhibin la iskaga dul qaato oo la iska dhaaf qoonsi male dhibaato male weey ashirkeena layliskiisu waa 5 maahmaahood oo aan rabo inaad koox fasalka uga shaqeysaan anigoo ardayga xun kala maqnaanshaha darteed ma wada joogtaan arday oo sidii hore weynigi u wada shaqeyn jirnay koox iyo groupiyo marka imika kooxdii halkii kooxda waxa ku galaya dadka kaaga agdhow guriga idinka oo kaashanaya dadka waay aragga ah ee guriga idin jooga ama waalidka sharaxa maahmaahadan sidii aan anigu u soo sharaxay oo kale ama si buugaagta idinku qoranba dameer ceel ku dhacay kokoyna waa lagu dayaabaa leeyahay bal maxaa looga jeedaa maamahada waad isku soo deeysaan waad ka soo shaqeynaysaan jawaabta WhatsApp-kaad igu soo direysaan lambarkayga idin siin doonaa hadii la yiraahdo waan idin saxi doonaa waan idin ku soo celi doonaa dad saxdan ardayga saxay iyo kay xabad khaladayba idinkoo la kaashanay dadka waayaraga ah ama dadka idinka agdhow ee idinku dhaama xagga dhaqanka dameeraha ta ugu foosha xun ayaa ugu haraatay kulul baa leeyahay maxaa looga jeedaa maamadaas dameeraha ta ugu foosha xun leh inkastoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu abuuro makhluuqaadkiisa wax walba sidoo ugu quruxda badan yahay haddana mid abahan aadamaha iyo xooluhuba xagga dadkuba ay sida dadkuba u kala qurqurux badan yihiin oo qaarkood ay foomka iyo aragtiinka iyo la jooga ay u xiiseeyaan qaar aynu hoos u yar foorarsano marmar ilaa bid'aanbayna way sognahay ay xooluhuna u yar kala bireerooyin marka waxa la yiri dameeraha ta ugu foosho xun ayaa ugu haraatay kulul maamadaas soo sharax wax looga jeedo talabaad dameeraha adari ninkii doonta aroosha dameeraha adari magaalada la yiraahdaa way dameera badantay aan diisi sheegay bakaba ninkii tagay baa tagay waxa la yiri way dameera badantay hadaba maxaa looga jeedaa dameeraha adari ninkii doonta aroosha bal hadaba idinkuna balbaara maskaxda dameerelay dad la kalmaaha waxa la yiri dad la kalmaaha dameerelay dadka dameeraha lihi intay dadka kale biyaha ku cabayaan ay ceelka u tagayaan ama ay ku soo dhaansanayaan ama ay dhaanka tagayaan iyagu la mid maaha bal waxay ku kala duwanaadeen iyo maamahada waxa looga jeedo si qiimo leh oo mugle u soo sharax maamahada istasharaad waa erey caadi ee maamaha waxa la yiri naasa dameerad ma horaada mise waa dambeediyo waa soo kala sheegaysaa naasaha dameeruhu ma horaada mise waa dambeediyo
وإمك وحقرية مربنا دي كل وما يدا دميرها وحكمها كو دمير دان راضي معناها إذا ما هذا نوح اللوجت هذا إن تذكر مانجاب كأي دمير هو بعيد عن لدنا هنا يسكت بقلان ويكون بلومان لبا دمير يسكو هاللين أيه هو يدي دبده وجنوكتا ما هذا نوح ينوت ما مساء إن دميره دميرته أنا أهراتين المهيدة سيدا إذا كلا يستبتك أي أهراتين أكله يضون أي يسكو هاللين يهوي يدي أكتي إلى أهراتين أو تقيسه dadka ficilada xun sameynayaan ida darrada aanay joojin ilaa ay arkaan wax ka qabta ficiladay sameynayaan saddex qof dameeraad qonsi malay maamaadan waxay noo tilmaamaysaa in dadka maangaabka ah iyo mayeeraanka qaarkoodba dabeecadaha ay sameeyaan aan la isku dhibin oo aan nafta lagu weyneynin ee la iska dulqaato laylis idinka oo kaashanaya dadka way arag ah idinka agdhow sharaxa maamaayadan dameer ceel ku dhacay kuhayna waa lagu dayaaba leeyahay dameerta ta ugu foosho xun ayaa ugu haraati kulul saddex dameeraha adari ninkii doonta aruursha afar dameerelay dad la kalmaaha shan naas dameerad ma horada mise waa dambeediyo taas maaha ee waxa weeyaan macnaheedu inaad soo kala sheegtaan oo aad idinku kala garataan bal hadda maadaama xagga damana laga shaqeeyo maamaha ay ku jirta aynu soo aragnay ma horada mise waa dambeedo aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin Steve fiinay darsiga ila socoteen iyo sidii casharka uga qayb qaadanayseen ee su'aalaha ay weydiinayseenba waa macallin Axmed Cabdiraxmaan Maxamuud oo idile sidaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum inta ka horeysa dugsiyada al irshaad schools